haddii aad daawatay taxanaha Game of Thrones dabcan wax badan ayaad maqashay magaca Tywin Lannister waa aabaha dhalininka uu gaaban filimka ee Tyrion Lannister iyo Jaime Lannister sidoo kale ha ka reebin Cersei Lannister oo ah laadarada ugu weyn taxanaha ninkan taxanaha waxa uu ku jilayaa shakhsiyad adag xikmad badan dhagar badan marka uu hadlayo waxa dareemaysaa inay ka muuqato haybad waxa jirta hees caan ah oo ay leeyihiin reer Lannister oo la dhaho roobabkii Castamere qisada heestan ay ku baxday iyo sababta ay u noqotay heesta ugu cabsida badan marka la maqlo ayaa muuqaalkan idinkula wadaagi doonaa aan ku bilowno Lord Tytos Lannister Tywin aabihiis wuxuu ahaa mid ka mid ah taliyaashii ugu liitay ee taariikhda qoyska Lannister soo mara ayadoo qoysaska kale sida qoyska Tarbeek iyo Alayrain ay deen ka qaadan jireen waxa ay bilaabeen qoysaska kale in deen laga qaato qoyska Lannister kadibna aan loo gudin sidaa darteed waxa hoos u dhacday sumcadii qoyska Lannister ay ku lahaayeen boqortooyooyinkii dhexdooda markii la arkay in xukunka Lannister uu haayo nin jilicsan oo aan xaqiisa qabiilada kale ka soo dhacsan karin qabiilada kale waxay ku soo dhiiradeen inay deen ka qaataan Lannister dib dambana aan loogu celin kadib markii Tywin uu ka soo laabtay dagaalkii boqortooyada ee uu arkay daciifnimada aabihiis iyo inuu ku guuldareystay inuu xaqiisa soo dhacsado ayuu go'aansaday inuu fariin u diro qoysaska Tarbeek iyo Alayrain isagoo ka dalbanaya inay bixiyaan deymihii ay ku lahaayeen waa ay diideen inay bixiyaan waxa ayna bilaabeen inay isu soo baxistaan si ay dagaal ugu soo qaadaan qoyska Lannister markaas ayuu Tywin soo kaxistay ciidan badan isagoon aabihiis ka warheynin Tywin wuxuu aaday dhankaas iyo qoyska Tarbeek ayagoo oon ka warheynin ayuuna dagaal ku kadiyey waxaa la sheegaa in Lord Waldrin Tarbeek oo ahaa hogaamiyihii qoyska Tarbeek uu awoodi waayey inuu soo aruuriyo dhammaan ciidamadiisii isaga oo goobta la yimid ilaaladiisii keliya kadib Tywin waxa uu agta mariyey qoyskii Tarbeek macnaha dhammaantood waa uu laayay dhulkoodii iyo qalcooyinkii ay lahaayeenna dab ayuu wada qabadsiiyey xitaa ma uusan cafinin ciyaalkii yaryaraa si uu u tirtiro taariikhda qoyska Tarbeek kadib Tywin wuxuu u dhaqaaqay dhankaas iyo qoyska Alayrain markii uu kaga adkaaday dhulkii lagu dagaalamayay ayay u carareen oo ay ku dhunteen qalcad lagu magacaabi jiray Castamere magacaas ilgooni ugu haayo Castamere waa magaca sheekadan dhan ku socoto qalcada Castamere markii ay isku soo xireen Tywin Lannister waxa uu xiray webiga wadadii uu mariyay waxa uuna u soo leexiyay dhankaas iyo qalcada Castamere macnaha biyihii webiga ayuu wuxuu u leexjiyey dhankaas iyo qalcadii macnaha webiga biyihii meesha ay marayeen intuu ka xiray ayuu wuxuu u leexjiyey dhankaas iyo qalcadii ay ku dhunteen qoyskii Alayrain dhammaan qoyskii Alayrain ayaa u dhintay qarqasho xitaa markii ay fariin u direen Tywin ayagoo dalbanaya naxariis laakiin uma uusan jawaabin dhacdadan waxa ay noqotay mid caan ah waxa ayna gaartay dhammaan toddobada boqortooyo waxaana soo ifbaxday heestan oo lagu magac daray roobabkii Castamere oo lagu muujinayo awooddii uu lahaa Tywin Lannister laguna xusayo sidii uu u baabiyey labadii qoys ee Tarbeek iyo Alayrain heer waxa ay gaartay marka qabiilada kale uu rabo inuu cabsi geliyo kaliya oo u diri jiray fanaan u qaado heesta Castamere tusaale ahaan marka Tywin uu maqlo in mid ka mid ah madaxda qabiilada uu doonayo inuu madax adeeg sameeyo wuxuu u diri jiray kaliya hal fanaan oo u qaado heesta Castamere kadibna argagax dartii ayay u hoggaansami jireen Tywin Lannister haddaba haddii aad daawatay taxanaha Game of Thrones waa kuma shakhsiyadda aad ugu heshay iyo hadalladii ugu caansanaa filimka aniga ahaantayda waxaan in badan xasuustaa weedha ah I am the king. I will punish you. Any man who must say, I am the king, is no true king.